بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواد أرداقين maanta barnaamijkeena waxaan kaga hadli doonaa habka dadka looga dhaadhiciyo waxaad rabto ama farsamada qancinta. Waqtiyadan dambe bani aadamku waxay ku baraarugeen muhiimadda ay nolosha u leedahay qancinta dadku ama inaad qofka ka dhaadhiciso shay ama arrin gaar ah. waxaana muuqatay kaalinta ay qancintu ka qaadan karto xaalado badan oo nolosha ah sida iibka, waxbaridda dadka iyo xitaa xidhiidhada inaga dhaxeeya dadka kale. waana sababta maanta ay sharikaadku lacag badan ugu bixiyaan suuq-geynta alaabtooda. waayo waxay fahmeen inaad qof shay ka iibiso inay ka horeyso inaad qofkaas ku qanciso sababta uu ugu baahan yahay shaygaas. maanta dunida shirkadda ay ka suuq-geyn fiican tahay way ka qancin fiican tahay waanay ka faa'iido badan tahay. kaalinta qancintu ku yeelatay nolosha casriga ah waxaa tusaale cad u ah buugaagta iyo warbixinada kala duwan ee laga qoro farsamada qancinta. maadaama aynu isla fahanay faa'iidada qancintu leedahay iyo waxtarkeeda, aynu isku dayno inaan soo gudbino qodobo ka caawinaya sidaad ku noqon kartid qof dadka qancin kara. Lambar 1, maamuusidda ama weynaynta shayga. bashar ahaan waxa aynu jecelnahay shayga fiican ee tayada leh ee ina anfacaya. sidaas darteed ku dadaal inaad qofka aad wax soo bandhigayso aad tusto qiimaha uu shaygu leeyahay, sababta uu ugu baahan yahay iyo tayada shaygaasi uu leeyahay. si qofku durba uu ugu dhiirado inuu shaygaas qaato. Lambar 2, adigu rumaysnow shayga aad qofka ku qancinayso si lagu rumaysto adiga. waxaa jira habab badan oo aad qofka uga dhaadhicin karto waxaad rabto adigoon been sheegin. ku dadaal inaad sharaxdo shayga ama tayada waxtarkiisa adigoo run ka sheegaya. rumaysnow oo naftaada ka dhaadhici inuu wanaagsan yahay. waayo waxaan adigaba kula wanaagsanayn qof kale kuma dhaadhicin kartid inuu wanaagsan yahay. Lambar 3, u fiirso dabeecadda qofka. qofka dabeecaddiisu tahay inuu u fikiro si caqliyeysan oo logic ah, ula hadal si caqliyeysan oo maangalnimo leh. sidoo kale qofka u fikira hab caadifadeed ee ku go'aan qaata dareemihiisa ula hadal si caadifadaysan. sababtoo ah waa habka ugu habboon ee aad qofkaas isku fahmi kartaan isla markaana aad u gaari karto hadafkaagii ahaa inaad qofkan qanciso. Lambar 4, ku waafaq doodiisa si aanu isdifaacid u gelin. marka aad qof la doodayso markiiba ha odhan waad qaldan tahay, laakiin marka hore u sheeg inaad la dhacsan tahay aragtidiisa, adigoo isla markaana isku dayaya inaad ku qanciso inuu taadana qaato. tusaale ahaan waxaad odhan kartaa, walaal aragtidaada quruxda badan aad baan ula dhacay, balse haddii aad tayada ila fahanto waxa inoo soo baxaya wax qurux badan. ugu dambayn, haddaad taqaano farsamada qancinta dadka waxaad noqonaysaa ganacsade wanaagsan, macallin wanaagsan, aabe wanaagsan iyo ta ugu muhiimsan oo ah bini aadam wanaagsan. dhammaantiinba aad bad ugu mahadsantihiin barnaamijka la socodkiisa iyo barnaamijyada kale aan kanaalka soo gelino habkooda la socotaan. aad baan idin salaamayaa. inta ka horeysa barnaamijka kan xiga waxaan idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.